وصحبه أجمعين. وهي 10 نومر هي سورة العصر. سورة العصر وسورة مركي الفيريو قابل حق لفتها معناه يدل وحيل ديري هاي معنى سورة داس وصدح آيات الإمام الشافعي وحال الأشياء إنه يريد لو تدبر الناس هذه السورة dadku hadday ku fakari lahaayeen oo fiirin lahaayeen suuradaas law wasa'athum ama la kafathum way kaafin lahayd way ku filan lahayd suuradaas waa suurad ka hadlaysa ruuxa asaga waxa laga rabo iyo dadka markuu la joogo waxa ay dadka iyo asaga laga rabo bay ka hadlaysaa suuradaas saxaabadu waxay sameyn jireen baa la yiri marka ay kala tagayaan way akhrin jireen mid kamid ah akhrin jiray kuwa kale ku akhrin jiray waa hadal oo saxaabada xaggooda laga soo wariyay laakiin xadiis oo nabiga laga soo wariyay aan ahayn wixii la yiraahdo saxaabada sameyn jirtayna waa wax sareeyay oo wax meel cad laga soo qaaday maaha waxa la markay kala tagayaan mid kamid ah akhrin jiray kuwa kale ku akhrin jiray macnaha wuxuu xusuusinayaa waxa suuradan ay ka hadlayso oo ah ruuxa waxa laga rabo iyo waxa dadka markuu wada joogaan dadka laga rabo suuradan marka suuratul asr la yiraahdo waxa jiray nin la yiraahdo Amr ibn Aas oo nin saxaabi ah laakiin markii hore suuradan markii soo degaysay muslim uu sanahay ninkaas marka wuxuu wafdi ahaan u aaday Musaylamatul Kadhaab nin la yiraahdo oo nabinimo sheegan jiray ninkaas wafdi ahaan u aaday Musaylama markii asaga taariikhdiisa laga warramo wuxuu ahaa nin sixirka iyo maaragtay kitaab ruuxda iyo faalalow waxaas ka shaqayn jiray waxaas ku khasbayeen waxay ahaayeen wuxuu rabay inuu dadka madax u noqdo oo wuxuu islahaa haddii nabigu uusan soo bixin ninka kaliya oo sharaxan oo maaragtay carrada qabsan lahaa inuu ahaa dareensanaa markii nabi maxamed uu soo baxay oo dad badan ay raaceen uu ninkaasi wafdi oo nabiga xaggiisa soo aadayay oo niman reer Yamaama la yiraahdo oo ka dhashay ay ku jireen buu soo raacay markii wafdigii yimid meesha yimaadeen intoodii badnaa bay'ad heshiis bay la galeen nabiga asagoo heshiiskii muusan galin nabigu wuxuu ku yiri waxaan rabaa buu yiri Haaruun iyo Muuse say isku ahaayeen oo kale inaan isku noqonaan rabaa buu yiri Haaruun iyo Muuse laba nabi oo Ilaahay maaragtay u diray ahaayeen arrin oo laba qof ay ku heshiin kartay inaysan ahayn ma oga asagu marka wuxuu isiri kolba hadduu jagadiisa sare qaatay mid hoos ku ogolaan doonaa wuxuu yiri Muuse iyo maaragtay Haaruun say isku ahaayeen oo kale baan ka rabaa inaan isku noqono marka nabigu wuxuu ugu jawaabay bahal abtiisa taalo oo arjuun ah dambiil oo tiirta lagu gurto ah wuxuu yiri bal inaan wax ku dhiibto iska daayay dambiishaasna kuma aan dhiiban ninkii marka uu iska noqday isagoo xanaaqsan meeshiisa isaga noqday masiixiyadiisii wixiisii isagoo wata muddo markuu joogay ayuu wuxuu soo diray warqad uu leeyahay min Musaylamata rasuulillah ilaa Muhammad rasuulillah warqadda ay ku taalo wuxuu leeyahay dhulka aniga amarka waa la xabaal liiga siiyay lagu siiyay oo kale dhulku labadayadu u dhaxeeya saas oo nabigu warqadu soo qoray asaguna uu leeyahay warqad oo min Muhammad rasuulillah ka socota ilaa Musaylamatul Kadhaab uu ku magacaabay warqad saas uu soo diray oo uu leeyahay والسلام على من اتبع الهدى هنوك قفكي راعة horta nabadgeliyo Allah yeelo meeshii uu yiri dhulka labadeeda uu noo dhaxeeyaan wuxuu yiri in al-ardh lillah dhulka Ilaahay baa iska leh oo qof leeyahay ma jiro arintiisi marka uu ninkii uu isku sii fogaaday shaqadiisu iska watay
marka nin Camr ibn Caas la yiraahdo saxaabada kamid ah ayaa wafdihaan u aaday oo markaas aan saxaabi ahayn muslim baan baahayn laakiin waxa meesha ka socdo iyo nabiga waxa ku soo degayay kulli uu la socday ninkaas aad tagay oo bal wuxuu yiri Musaylama la sheegay soo fiir oo yimid wuxuu yiri Camrow ninka ka timid oo Maxamed ah ayaa wax lagu soo dejiyay markaasuu yiri haawal u soo dejiyay suurad gaaban wajiis ah oo baliiqna xeel dheerna baa lagu soo dejiyay markaasuu cabaar inta waa suuradda wal casr way markaasuu cabaar inta aamusay wuxuu yiri markuu cabaar aamusnaa wuxuu yiri aniga waa iyadoo kala lagu soo dejiyay wuxuu yiri akhri bal hadda suuradda adiga lagu soo dejiyay aan dhageystay markaasuu wax qusac balaada oo qofkii dhageystaaba uu ka cararayo akhriyay waxa kamid ah wuxuu akhriyay yaa waro wa afar goor soo celiyay inma anta udunani laba dhagood baa leedahay iyo wasadrun xawr wasaa'irukuna xafsu wa nafsu wax saas oo kale waa akhriyay xuriya waro wabarka waxa la yiraahdaa bakaylo سعودي دور أفر دور فرق إنما أنت وذناني لبد قد بعد هاي يوسدر الحوض فكيلا هو أركتين قفك أركيه وأركيه مركو تانية دقيق سنوات تانية يحاول كسنوات تانية مركو لبد قد يحاول بعد هاي وسائرك أنت كلو قصة هرتنا حفظ النفس والذميم وحس كل تواي قارك قدم وحاوم عنه marka intaas uu rabaa inuu quraan ka dhigo oo maaragtay asaguna dad ku hela maaragtay markaasuu ninkii uu sheegayay oo markaas aan muslimahay wuxuu ku yiri Camr ka war aniga ayada aan suurada lagu soo dejiyay markaasuu Camr wuxuu yiri wallahi waan ku dhaartay innaka la ta'lam anna a'lam annaka la takdhib waxaad ogtahay inaan anigu ogahay inaan been sheegayso saasan ilaahay ku dhaaranaya kula بيلو إنا تاي إنا أنا وقوي أدنى وقتاي إنا بيلو تاي مركب منكي وش هي مواد كده دعوة مركب صورة دان أيوه الربي صورة داس جابر أو كلا أسوي إنه صورة شيء توه معناه الله لكن بفكر إرادة الله سبحانه وتعالى هذا الحديث كإيمان الله اللي قدمه بيع الله سبحانه يا سيد نكاس مهرة أو كلا نكاس اللي أبو بكر هي ماركتي nimankii dadku uu la joogay baa waxa ku badatay ridadii ku badatay gaalnimo ku badatay dad soo islaamay baa noqday ilaa shaydaankaas ku dhex jiray Abu Bakar baa war ku qaaday asagoo boqol isaayid sare jira meesha ku dhintay dadkii la laayay oo kale maaragtay yamaama meesha la yiraahdo waa kale oo dhulka Sacuudiga hadda kamid ah dhulkaas uu meel kamid ah inta garanikaas Bismillahir Rahmanir Rahim Suratul Asr suuradaasi marka ugu horeyso waxyaalaha ka hadlaysa waxa kamid ah Allah subhanahu wa ta'ala oo makhluuqaadkiisa ku dhaaranaya oo haddana uu xaqiijinayo insaanku kulligiisa uu khasaare ku dhex jiro haddana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegayaa insaanka qaybo kamid in ay wanaagsan yihiin oo khasaaradaas aysan ku jirin tilmaamaha ay leeyihiin dadkaasi tilmaamay inay yihiin kuwa Ilaahay rumeeyay acmaal saalixana la yimid khayrka iyo maaragtay kitaabka iyo macruufka inay isfari jiray isfara haddii maaragtay ay xaqa sheegaana ka bacdi haddii uga yimaado dhibkaa ku sabra aayaddu marka macaani badan bay ka hadlayso laakiin macaanidaasaa ka mid ah bismillaahi araxmaani araxiim ilaahay isankiisii baan ku bilaabahayaa الله الرحمن نحرسنا نحرس عام كنا حرسنا الله الرحيم نحرس خاص كنا حرسنا معناه وحل وضع الله سبحانه وتعالى نحرس عام كنا حرستا ومسلم يمشرك بجارس الدنيا ده وقرتين نحرست إلهي قال لي بس قبر واقسا ومن أنت روا جارسة لكن ما لنت ربط بسوء آخره ومن أنت نحرست إسكالي حريص خاصة ومؤمنين إليه إن إلهي وليه مركب باسم كاس أيان بالله هيا سورة ذي وإلهي إليه والعصر
عصر كان كل يا ولي إلهي إن الإنسان لفي خسر خسارة يجران الله سبحانه وتعالى ودارنا يا عصر كاس المفسرين تقارون الشيء وصلاة العصر ودارنا يا ونوح إليه وقت شخص يجرب إلهي ودارنا يا لكن سيده هو وحويه إنه الله سبحانه وتعالى ودارنا يا دهري سامن كورن إنه ودارنا يا والعصر ما كدارنا يا بني عصر في بني إلهي شيء إلهي وكدار تمكا شرف دوري وليه هدي زمن كي لقدرهم هدي لقدرهم ما تقارنا عصر صلاة العصر لقدرهم متك السؤال ترى هذا بقى إن وليه إلهي وكدار تروح شرف له أبيكي وكدار تا مالتي وكدار تا برغدي وكدار تا وأرتي والشمس وكدار تا والليل وكدار تا إلهي وحاصلا إن الشرف اللي يجيب له عدنا أبينك ووقت الله نصرها والراحة سنة مالك ووقت الشغل الله بحاي مركب وحكس إلهي كل عرته ووحفة إيده وفضل الدنيا الله مركب مخلوقات كسر غير كم إن بدل كل عرته وأنا أكيد أنت لكن هذه اللغة قلنا مخلوقات كالله إن كل عرته مركب دارم يسوع على جربة إن كل عرته أسماديس إن كل عرته والله تلا أساس كلنا ورعته لكن هل ودي ده يعني الله ينبي وكله الله يوليه وكله إن أكون عرته أما كل جود بأكون عرته له ما وكله دارت إلهي وأسكري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي هاي من حلف بشيء من دون الله شيء إلهي كسك يقف في كل عرته فقد أشرك إلهي وحوله وذنجه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحيحه وصحيح الألباني من صحيح يعني حديث مركا دارت لما أقول أن إلهي وحنا هنا لو دارت لما أقول النبي لو ما دارك وليه لو ما دارك لكن أنا يقدر كنجي هرا وحها وفي مركو إنه دارت وربه قاروا هيكون دارين جرين أستاذك دتك أنت بين ميغاني وأكون سيدك اللي جري سيدك أستاذ ميغاني سيد محمد عبد الله حسن مركا يدارن هيان مكو أستاذك يكون دارين جرين مالك dadkan waa yaqaana waa kuwa yiraahdo wiilasha Allah iga qaado gabdhaha Allah maaragtay caruurta Allah iga qaado naagta way iga dalaaqan tahay wadada ku dhaarta wax noocaas oo kala wax aas oo dhanba dhaar maaragtay wax dhaar oo jiro waana waxay noqonaysaa Ilaahay oo wax la dhinacsano Ilaahay baa lagu dhaaran karaa maahane lagu ma dhaaran karo marka wax kale oo ka soo haray marka Allah subhanahu wa ta'ala asaga waa u banaantay makhluuqaadkiisa inuu ku dhaarto hadda zamankiiba ku dhaaranaya والعصر وقدرنا يا بني إلهي إن الإنسان لفي خسر خسارة يكجره تدك يقانا لقدر سيد أسعته هذا كان دو إلهي مرة ودار ماشي لسوقي إن تدك عربي يقانا ويقرنا يا وحيلها وأضيق حوجين تكينا ووحاني أضيق إليه تسيء كجرته لفي الله كجرته أيضا نصدق كلوي وها أنت صرنا يكون سواه يا وحوي إنسانك إنه خسارة كجرو خسارة مركب محيا خسارة محل هذا خسارة ده محل هذا روحه حول إنه هيستو وحوله يستاس وجناح سكوت سماية وحوله ماشي وفائدة كهذين هي فائدة دي يلا فيه لبضي بقى إسرعان ونعيش أخو خسارة ترسل هذا هذا ما أنت إنسانك حوله بقى كخسارة لوجه ما تجده لكن وحل لوجه تجده إنسانكو وحقو فرقوها يلاماركو أعماشي وسمينها هي أعمال وحكيه لها هي معاً سيدا روحها حولها كوغان عسده والله فيه إيو إسكر عن حوله أسل كودي فايدة إسكر عن سيدا سو كلام أيا روحها عبادة بسوء سمينها هي وحقو فرقوها يعلى إنسان كمركب جودهان بلغها الله إنسان كوا بني آدمك كل جيس خساره كجران هذا ليه waxa sheegayaan waa alla oo kawar oo hadana waliba dhaartay marka warkaas war oo gadaal war dambe loogu noqonayo ma aanin insaanka oo dhan khasaar ku jira macnaha waxa weeye insaankii acmaashu uu soo sameeyay wax uu faro uga haya lama arko illa alladina aamanu ku ilaahi rumeeyay ma aan
afar tilmaamood dadkii leh baa laga soo reebay insaankii oo dhan inta kale khasaare ku jiraan tilmaamaha marka afarta adiga iska raadi bal inaad ku sugan tahay haddii afartaas tilmaamood aad wax ka haysato markaas xoogaa rajaalada laakiin afartaas hadaada waxba ka haysan ogow khasaarada dadka ilaahay uu ku sheegay baa ku dhex jira ilaahayna warkuu sheegaa waa wax jira maaragta famaada bacda alxaq ila dalaal waxa xaq ah ilaahay uu sheegaa wax ka dambeeyaa ma jiraan ilaa baadi maahan tan ugu horeysa waxa weeye illa aladiina laga soo reebay illa aladiina kuwii maahane aamanuu ilaahay rumeeyey kuwa iimaanka laga helay iimaanka annaga soomaalida waxaan u naqaanaa qofkaas haddii la yidhaahdo iimaan male qofkaas waxay ka wadaan qofkaas qanaaco male mana aan ka looga jira warkaas waa mid iimaan kala macnaha wixii la siiyo maaragtay qofkaasi ma deeqahayaan maahan iimaanka noocaas looma jeedo iimaanka loo jeedaa waxaa weeye ruuxu inuu ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa rumeeyo xadiiskii waa kii ahaa an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi iimaanka lagu sheegaya ruuxu waa inuu ilaahay rumeeyo waa inuu maaragtay rusushiisa rumeeyo waa inuu malaa'igtiisa rumeeyo waa inuu kutubtiisa rumeeyo waa inuu yawmul aakhirka rumeeyo waa inuu waxa ilaahay qadaro oo khayr iyo sharaba inuu rumeeyo ilaahay xaggii inay ka yimaadeen iimaanka lagu sheega kaas weeye intaas marka iska raadi ilaahay ma rumaysan tahay see ku rumaysan tahay ilaahay sifaadkiisa ma taqaanaa waxa rabbinimo ilaahay lagaaga rabo ma taqaanaa tilmaamaha uu leeyahay ma taqaanaa cubuudiyada uu leeyahay sida loo caabudo ma taqaanaa an tu'mina billah rusushiisa in la rumeeyo ilaahay rasuul badan buu leeyahay oo nebi maxamed ugu dambeeyey annaga noo soo diray kutub buu leeyahay kutubtiisa ma taqaanaa intay yihiin kan noogu dambeeya uu ka mid yahay yowmul aakhir inuu jiro ma rumaysan tahay yowmul aakhir inaad rumaysan tahay waxaa lagu fahmi karaa inaad ka cabsanayso ma lagugu soo socdaa inaad cabsi kugu jirto laakiin haddaa cunada iska cunto iska dhaqaaqdo oo hore isaga socoto maya ma rumaysin waa inay qalbigaaga cabsi yowmul aakhir inuu imaan doono yowmul qiyaama inuu imaan doono waa in qalbiga uu kaaga jiro waxa qadartaa oo dhaca waa inaa aaminto maaragta argagax inuusan kugu dhicin haddii wax dhacaan waa in allah xaggiisa inuu ka yimaaday aada maaragta rumayso saasaa lagaa rabaa an tu'mina billaahi way intaas aamanuuda arrintaasaa lagaa rabaa wa camilu saalixaati camal wanaagsan kuwii sameeye maahane maxaliya dadka khasaarada ka badbaadaya waa dadka camilu saalixaat acmaal saalixa kuwii sameeye wey qur-aanka haddii aada akriso waa camilu keliya arki maysid meel walba asaalixaati baa lagu daraa maxaa loogu daraya lama rabo inaad camal iska samayso dad badan baa iska daalahaya oo camal samaynhaya oo luguahaya sowsoorooyinka kiriftaankaa ma arag kuwo badan waxaa laga yaabaa inaysan guursan waxaa laga yaabaa inaysan maaragtay shaqo kala qaban intaas ay mashquul waxay ku yihiin waxay ayagu cibaado moodaan marka cibaado ma noqonayaan waxaas ma noqonayaan cibaado haddaysan camalku hadduusan camal saalixan ahayn camalka marka la rabaa waxaa weeye waa camal saalixa inuu yahaa loo baahanya ma garan camalku marka saalix wuxuu ku noqon karaa u fiirso laba shardi markuu wato cibaadada aad samaynaysaa saalix waxay ku noqon kartaa laba shardi markay wadato marka ugu horeysa waxaa weeye haddaad salaad tukanaysid haddaad soomaysid haddaad sika la baxaysid haddaad wax ilaahay ugu dhawaanayso oo dhan markaad samaynayso waa inay ilaahay daraaddi aa u samayso haddaad ilaahay daraaddi u samay waa ka helayso lama shardigaas waa in qalbigaaga ku taagan yahay camal kastoo aad samaynayso ilaahay daraaddi waa inaad ula jeedaa masalada ilaahay daraaddi ula jeedo markaad sadaqada la baxayso haddii aad ula jeeda ka waran hala yiraa qofkaan deeqsi waayo markaas haddee ilaahay waxay la wadaajis qofka aad maaragtay deeqsinimada inuu kuu sheego aad ka rabtaan baad la wadaajisa waxba ma ka helaysa camalkaaga waa inuu khaalis yahay camal kastoo aad samaynayso waa inaa ilaahay daraaddi ula jeedo saasuu saalix ku noqonaya kow ka labaadna waxaa weeye camalka markaad samaynayso qaabkaa u samaynayso qaabka u siiya waa inuusan ahayn qaabkii nebi maxamed u samayn jiray waa inuu yahay salaad markaad tukanayso salaadaana waa inay salaaddii nebi maxamed kuu noqoto
zaka markaa bixinayso zakadu waa sidii nebi maxamed u bixin jiray waa inaa u bixiso soo markaa soomayso sidii nebi maxamed oo see nebi maxamed hadduu kalama joogay aada u ogaanaysa waa in kitaabaha ay ku taallo oo xadiista waa in akhrisataa saasaa ku ogaan kadha waa inaad diinta barataa markaasaa waxaa ogaanaysaa waxa aad samaynayso wixii nebi maxamed samayn jiray inay yihiin iyo inaysan ahayn markaasaa kale ogaanaysaa marka waa camilu saalixaati haddaad maqasho waa kuwa camalka ay samaynayaan cibaadada ay samaynayaan waa kuwa cibaadadaasi labadaa shardi ay wadato weyn waa in ikhlaas uu la yimaado ilaahay daraaddiisa uu la yimaado waa inuu camalkaasi camal uu yahay nebi maxamed uu uga dayday inuu fiiri marka adig weligaa waxaa nebi maxamed ku ogaan kadhaa acmaashiisa ku ogaan kadhaa inaad had iyo goor daa'imto meeshii lagu akrinahayo diinta lagu akrinahayo waa inaad daa'imtaa waxaa kuu baxahaya markaas ood ogaanaysaa wixii xaqa iyo wixii kale ayaa kala ogaanaysaa marka weligaa waxaa isku daydaa in aad maaragtay acmaashaada ay noqoto acmaal saxa inay noqoto sidaa isku day maaragtay labadii marka ugu horreysay weeye afar arrimood waa inuu ruuxu haystaa aan soo dhari moogtahay tan kale waxaa weeye watawaasul bilxaq waa inay yihiin kuwa isfara xaqa waa inay yihiin xaqaas macnaha waxaa weeye alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar macruufka waa in la isfaro munkarkana la iska reebo kuwa isku dardaarmayo wey بالحق إذا سمعنا ماذا وحكوا في السلام بالكتاب هو اسكول دار كتاب من كتاب القرآن كان له دغ سنة النبي له دغ هو اسكول دار موي marka taasina waxay noqon kartaa oo suuragal ku noqon kartaa qofku inuu waxa uu diinta ka ogaado inuu dadka u sheego oo ruuxii ay ka khaldanto oo arko inuu u sheego mutawaasil bil haqq kuwa isku dardaarmay weeye bil haqq haqq isku dardaarmay oo qofka kale uu sheego hadda haddii hal masala aad meeshaan aadan ogeyn aad ka hesho waxaa lagaa rabaa guriga haddii aan laga ogeyn inaad gurigii geyso inaad u sheegto saasaa lagaa rabaa laakiin haddii aadan lagaa helin oo xaqa aad iska dhegaysato qofna aadan u sheegin lafii khusrintii sidaa uga bixi lahayd aan rabaa markaas waa afartan tilmaamood dadkii leh baa ka baxaya baa layidhi insaanku khasaaro ku jira baa layidhi afar tilmaamood qofkii iska hela qofkaasaa khasaarada ka baxaya watawaasaw bisabri tanna waxaa lagu darayaa haddii xaqa aada sheegto xaqa markii aad sheegto xaqu meelo badan buu taabanaya ooga badan buu dhibinhayaa meeshii aad ka hadasho qoladii aad ka hadashaaba waa ku dhibsanaya haddii dowladda aad ka hadasho dowladdii waa ku soo kacaysaa dhib bay la imaanaya sawar baa lagaa rabaa haddii ganacsatadii aad la hadasho waxyaalaha xun ay samaynayaan waa ku dhibhayaan sawar baa imaan lagaa rabaa midka khabaarka cayaara haddaad ka hadasho arrintiisa iyo midka zinada sameeya iyo midka xumaanta sameeya nooc kastoo ay tahay wadaadka waxyaalaha uu ku qaraabta haddaad ka hadasho asagaa weerar kugu soo qaadahaya weerarkaas sawar baa lagaa rabaa adiga u fiirso qofku hadduu xaq wado dadku ma wada raacayo in alla intii uu taabto arrimahooda oo dhan xaggay ka marahayn inay ka maraan kaliya maana xaqii xataa waa ku dhibayaan maarka waa ka hor imaanaya laakiin markaas waxaa lagaa rabaa bisabr inaad sabr la timaado weligaa u fiirso ma helaysid rasuul la soo diray oo reerkii loo soo diray horay ay howreer ka yidhaahdeen lama hayo rasuul kasta dhagax tuur baa ku dhacaya waa la eryahay nebi maxamed maxaa ku dhacay markuu daa'if tegey adeerkiisaa dadka ugu soo hormaray markaasuu dhagax tuur la galay markaasuu ciyaalkii iyo naagihii lagu dalbaday markaasay dhagax ka daba wadaan ilaa maaragtay ay madaxaysa ay dhiig ka keeneen maaragtay waa rasuulka ilaahay adiga nebi maxamed baa la dhagaxyeeyey hadda waxaa laga yaabaa inaad la yaabto laakiin waa la dhagaxyeeyey nebiga oo dhib badan baa la gaarsiiyey nebi la soo diray oo ummaddiisi markuu u yimid waayay hore ka yidhi lama arko qolo kastaaba dhagax tuur bay ka hor keenaysa laakiin ummadda qaybo ka mid ah raacaysa markaas macnaha maxaa meesha lagaa tusinayaa waxaa lagaa tusinayaa
inaysan maaragtay arrintaani ay tahay qofku hadduu xaq sheego in xaqi uu yahay mid mar walba oo dhibkiisa wata. marka ruuxu haddii isagu xaq sheego xaqaasi waxaa ka dambeeya dhib baa ka imaanaya. dhibkaas marka waxaa la rabaa inuu ruuxu ku sabra lagaa rabo. haddii aad aragto ruux ummadda maaragta baraka qaboway ay ka daba leedahay oo ruux kaliya oo ka dhagaxtoor ka wada aan la arkinin waxa uu sheegayaa xoogaa barxan maaragta oo dadka ayuu waxay rabaan u sheegaan ma garan. haddii aad dadka cidda aad la joogto haddaad tahliiliso oo qof walbaba aad ka ilaaliso wuxuu dhibsanaya aad ka ilaaliso dadkoo dhan bagay kugu qaadanayaan. maxaa yeelay ruux walba wuxuu rabo haddaa u xalaaliso tiraahdo sax wey. haddii la yidhahdo waa la duulayaa sheekh cidduu duulaysaa haa bal duulaanka ha laga daayo muslimka haddaadan inaad tirahaye ayaa hala duula faatixadan ku tufahayaa hadhow waxaa laga yaaba wixii la soo helo wax in lagaa siiyo cidduna waa ku soo dhaweynaysa marka xaqu adiga waxaa lagaa rabaa cidduu rabo ha dardare adigu iska sheeg. laakiin haddaad sheegi weydo adiguna meesha wax kuma haysid dadkuna weligood jahligaasi ku jirayaan. laakiin waxaa kaaga fiican xoogaa yar oo xaqa fahma oo siduu yahay u qaataa kaaga fiican dadkan weyn oo fara weynaa oo ku danaysanayso haddaa wadaad tahay. bismi illaahi araxmaani araxiim walcasri baan ku dhaaranayaa ina alinsaana insaanku la fii khusrin khasaare ayuu ku jiraa buu leeyahay ilaahay ila aladiina kuwii maahane aamanuu ilaahay rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati camal wanaagsan camal falay oo tawaasow isku dardaarmay bilxaqi xaq isku dardaarmay oo tawaasow haddana isku dardaarmay bisabri sabar isku dardaarmay. markii xaqa lagugu yimaado warniyo sabar dadka isugu dardaarmay marka afartaa qolo ayaa maaragtay khasaare aan ku jirin. afarta qolo marka adiga iska fiiri afartaas qolaba ku jirta horta iimaan ma lagaa helay bal isku fiiri. acmaasha saalixa sidii nebi maxamed ula imaan jiray mawla timaadaa oo khaalis ma tahay oo ilaahay daraaddi mau samaysaa waa labo. xaqa dadka mau sheegtaa oo wixii adigu aad taqaano qofkii aan garanayn mau sheegtaa. haddii dhib kaaga yimaado ma ku sabartaa. haddaa xaqa dadka inta u sheegto dadku ay kugu dhibaan oo dadka ay iska celiso khasaaradii baa ku jidhaaya ogo sabar baa lagaa rabaa waa inaad ku sabarta. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii sifooyinkaas un wanaagsan hela saasaan ilaahay weydiisanayna. bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu takaathur suuraddaani ayadu waa suurad ayaduna ka hadlaysa in dadku ay ku faanaan nasabka xaggiisa ama xoolaha ay ku faanaan. waana arrin dadku badanaa u badan yahay. mufasiriinta qaarkood waxay sheegaan suuraddani waxay ku soo degtay yuhuud bay ku soo degtay. yuhuud wax ka faan badan lama arko. naxnu abnaullahi wa axibaahu waa ku yidhaahda annagu ilmihii ilaahay baan barnahay ba yidhahda iyo kuwa ilaahay jeclaa. marka ibnu cabbaas oo kale wuxuu leeyahay maya waxay ku soo degtay niman oo quraysh ah oo laba qolo oo ka mida quraysh laamaheeda ka mida oo qolona la yidhahdo reer cabdimunaaf reer bani cabdimunaaf la yidhaahdo qolona la yidhaahdo reer bani sahmi reer cabdi sahmi reer waxaa la dhihi jiray ayagana fa kale oo qurayshta ka mid ay ahayd reer bani sahmi saasoo kale inay ahayn maahan. marka labadaas qolo ayaa isku faani jiray. faankoodii wuxuu gaaray inay yidhaahdeen marka ugu dambaysay annagaa idinka rag badan waa la tirsanayaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel. markii tiradii qolo ay nin la dheeraato ayaa la gudbaya waxaa leeyahay abuuraha maaragtay aan u gudubno marka inta nin nooga maqan maaragtay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel. marmarka qaarkood waxay ku faanahayaan dadka geesiyaalka ah annagay naga dhasheen. marmarka qaarkood waxay ku faanaan dadka xoolaha leh iyo dadka madaxda iyo dadka magaca annaga xaggayga ka soo baxan annagaa laandheera ah oo dadka annaga
تربنا إلا مركي وجود بيسا إذا كان قبورته كجرا ترسدان هبل هبل وقبل كجرا أنا قلنا قبل أن نرجع جيسيوا مركا أنت النوع عاصي محمد دحوغا إن أنا نفتي وإن قسم ويسي توتو قبائلك حوغا سيدا وكلا واقب ضنتها وحتى واحد سكنت ريبا الأرب وحلقيها وإن سيداني وأنا كافي عن معك وترد ما يضع ترد واحد وفعنا وعبسي الله وهو واحد وفعنا هذا ما هني ربما وفعنا هذا ترد مدن وعلى الله هاي ضدك إلهي كعب صدق يقال ضدك وفعنا حي الله والرسول إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو نفسه وهو إلهي هو عبسي البدن الدار تمرك إن أقفك كفعنا إلهي عبسي يقوله لكن أنتم ما إن وفعنا أنا ما ركت كاري ضد بدن أنا كابدن بدن أنا كحول بدن أنت سمعت وأنت سأنت سورة دار الكهل سمعت بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى وحده ليه ألهاكم وحي شغلي ضدو التكاثر بل اسمه فارد وحي شغلي بل اسمه فارد أنا كافر بدن أنا كجيسي بدن أنا كجرعسة بدن أنا كمدح بدن ولدي دور مدحوني كسب هذا وحيلي مدحوني يلا أنا يدقي ما دي ما وأنتم كريم هذا من مدحوني معناه ليه أو إلهي حق سكيم أو كي يلا ما أنتم إلهي كعصرها وأهله متشكر ومعناه لكن هذه وحوية اللي نفتس وحوية أنتم نمرك سيئة أسرع وتعلم ألهاكم وحي شغلي وأنا ضدو التكاثر بدي اسمه فارغ بدي اسمه فارغ أنا كابر بدي شغل سيء حتى زرتم إنت كزيارتان أو مقابر قبورت إنت كزيارتان أو مركي تردي كاتان أنت اللي يراد أنت قاركو يرادين أنك من هبل بعد قبل هبل أو قبريس على سؤال هذه اللي كملها قبورت أنت كزيارتان أمك وحكى له المفسرة حتى زرت مقابر قبورت أنت كجشان فان كاسا وليس أنا كارم بدن أنا كأبويها بدن أنا كجرعسة بدن أنا كمدح بدن هذا سووليس أنت أكد مكان ما أنت مكان أنت محاول وبيها هذه وحفهم بيسويها وحفويها وعمل كأقول أكثر وفق شقدي سوى الله مرك الله سبحانه وتعالى سوى وارنتاس لو قدقي أيوم بلي كلا وكجوا وارنتاس قبيلك أبو فارسان يحول أبو فارسان إسكنداية هدي أنندي سوف تعلمون وادوغان دونتان ما المال ما كميدا دوغان دونتان وادوغان دونتان مركي نبير هذا وفيرسو waxaa dabayaa lagu maaragtay guud weeye arintiyo yasiib heli doontaan way macna sawfa ta'lamuuna wa ogaan doontaan haddana waa lagu celiyo waxa la yiri thumma kalla oo ka joogsada arintaas soo adigu ruuxu haddii uu khaldayahay soo kuma celcelisada ma tiraahdo war ka joog war hebel arintaa ka joog war hebel soo kuma celcelisada wixii aan wax ku fahmi karnaa wax lagu sheegayo marka hore waxa la ka jooga waad ogaan doontaan haddana waxa la thumma kalla war ka jooga sawfa ta'lamuuna waad ogaan doontaan goorta baad ogaan doontaan kalla waxa sugan oo xaq ah لو تعلمون هداد ogaan lahaydeen cilmo yaqiini علما هو اليقين علم يقين هداد yeelan lahaydeen لما ألهاكم التكاثر إذا مشغولين بل سوفا إذا مشغولين هذه علم يقين يرى هيدين إن البديع سوفا أنتان إذا مشغولين مركب حام يشك على مقرأ قف كفارا بديع أنك كالله دارس قف كفارا قف جاهل إنه جاي
حيله علم يقين لها مية الأساس وحاسب وإنه لغة جاهلين إنه يهي بعد إيش على قاعد تصيرين هذا يدل علم ليه أساس ما يسير لما يقولين كلا وحا حقا وصون لو تعلمون هديه قال لها لين علم اليقين علما وهو اليقين علمي ويقين هديه لها لها لما ألهاكم إذا مشغول لين التكاثر بل اسمه فاق إذا مشغول لين لو ذا سأوحي وبعد جواب بعد جواب تمركوا حوي لما ألهاكم تاسوين ألهاكم وحا إذا شغلين ضرب التكاثر بدي السقفانت حتى زرتم انت تكلمتان المقابر قبرت انت مارك كزيارتان حتى زرتم انت كزيارتان المقابر قبرت تفسير من نقول هاي وامرك رجل تريني انا كارك بدن انا كعيدا بدن هي نبحيه قبرت كو جيرنا ان تريني marka la leeyahay ما قلت أما وحال أنت قبرت كذب تامبوي حتى متم في المقابر قبرت أنت أول ما تام سيدا سيئلي سيء مركز دغن كاسي ودغن لنا عنك كجيرة سومالي هدي أنا إنك جيرة قبيل كتبه الآن سيها قبيل كبديا إنه كفي عيني والله نسكفي عنك قبيل كوفي عنك كرا إنه إلى كعبسي هو بديا لكن هالديابة سكت اليوم قبيل كفي عليها قف إلهي كعب سنة عشرين سعيد وقولته لكن قبيل كانوا كسوفان ويرادوا هذه هذا عبسته يقرب استاج عن سكت النية ماشي وقوم جفتهم كلا والكتشوجة أرنتاس أرنحون وياه سوف تعلمون شرط بعد أغاندونتان أرنتاس ثم كلا كتشوجة سوف تعلمون واد أغاندونتان برد بعد أغاندونتان كلا بدان وكد وتاتي هوري حقا وحاسوا لو تعلمون هداد وقال هيدين علم اليقين علم يقين هداد ويل لها هيدين أرنت أسمين إنسان لما ألهاكم إذا ما وصل شغليا أتكاثروا بدل إسكوفانكم إذا ما شغليا بدل إسكوفان إنسان إذا ما شغليا هداد وقران إنسان معناه marka waxaad garanay way macnaha dadka inta sameeynaayo marka meeshii laga sheegay dadka arinta sameeya dad jaahiliin inay yihiin ee dad cilmi la aysan dadka marka sidaa sameeya amalmarintooda lagu sheegay dadka isugu faana qabiil ahaanta ana ka fulaan dheeraysan ana ka maaragtay madax badan ana asaasa dadka ku faantama amalmarintooda lagu sheegay أيها الله هذا الوحيد لا ترون وأركيسان الجحيم نار الجحيم اللي هذا أركيدون تاني قبل سوفان كوحي إن كينا هي إن نار الجحيم اللي هذا أركتان ثم لا ترونها وأركيسان نار الجحيم اللي هذا عين اليقين يقين نفط ذات أركيسان سي يقين هذا أركيسان معنا عين الشيء نفس الشيء ومعناه عين اليقين يقين نفط ذات أركيسان معناه وحوي النار الجحيم اللي يراد به نتفي عن أركيسان مركا دي يقول النار الجحيم أركيسان معناه ما هن تلحيس ما هن معناه وحوي أمر مريب بهوليسان جحيم النار اللي يراد أمر مريب بهوليسان حامرك بيش إنه صباحي ذات قبيل كفانا أصحاب الجحيم إليهين ونار الجحيم إيمانة دم بأرك دوران سفي عن يقين أيضا إلا كل دوران حامرك لغاروا قبيل كوناك كرع لكن ما كلها هكو دران وخلطة مرنا هكو قرب استاقي هذه كل قامة مالنت الودن بيسا وحال يقولي وحبا ويدي محاد وراعي قبيل كوحينا وطرون وقام معرض ساس سوال ديرو طرون وكو طرون ما يوحى في عنه طرون لكن يوحى من حق كاميرا هذه روح يسوف أنا هي قضية هي ما نتعلمها نوع عسى وأريد جاهلية ما هنعلم إسلام أنت أسمعك اللي جسوا بحي ضدك يسوف أنا هي قبيلك هي حورها يسوف أنا هي إن آخر كود نار الجحيم اللي يراهدو هي التحي مركي نروش أي هدنا أرين كلام ورمهان ولا أي هدنا نروش
ثم مركز كبعد لتسألون والد سأله يومئذ مالنتاس عن النعيم نعموين كأدوية هتكسو هشان كل قد والد سؤاله مالنت غيام نعمك كسو أدوية كسو مرتوى الودينة نعمة داسي مركا أنا وحى عنه هيسنا والغيها وحفر بدن حول بدن وسيو مايا النبي صلى الله عليه عليه آيات تسوى آخرها وصحابتي وعقير والذين ويدين دونا نعمة كل نعمة سنتهين مالنتا الدنيا بيامد والذين ويدين دونا مركز صحابة هو كم ذا وحيدا هو محوحنا لو الدين يا رسولك إلهي إنما هو الأسوداني ماشان وحورت يدي الله ولا أذي مذمذوبين وقت هو الرئيسي وإسلام هو الرئيسي نروح شوي أتكلم بيئة تمر بويرة لبعض مرتدية وسيوف على عواتقنا سيفون قارن وحي نسارين ديفتي نسارين والعدو حاضر عدو نورت يدو جوه وحن ماشكوها إنه بيها يتمرتم عدو هنا مارك تمرت يدو فريا سيفين هنا قرب نسارين مركز النعمة يبرواقض عنه يسنوام هاي مركز النبي وحي إنما ذلك سيكون أرنتاس هو أهان دونتا مال مارمها كمدا بإيمان دونتا معناها نعمة أي إيمان دونتا وين بعضي ومسلمكم مركو فتوحات بدن إيو وحيارة بدن أي هلين أوريه بغفر وميلو محكالة دموهاي مركو هو نعمة اللي يسوي الدين هي وحا كمدا بيها ودعبتوا اللي هو الدين والوحكا لو كفر اسكب الدهب عانا قبول وعدمتين عنا آدم معانا وعدمتين اسكب الدهب بيها اسقبوا وقلبي قالوا هي أسيديسي ما أنت قيام والوجود دونا وحلولية النعمات إلى أي كسيين وكش برسي عنا كلية ما وعاني نعمات إلى أي كسيين بالأدي قدار أمه إمدال المسيين دقال المسيين عرور بالمسيين مسكحوال المسيين حين نبضن ونعمة يسمى إلى أي كسيين ومدول بو مركا يقولوا في رسول نعمات هذا نبين كريم نعمتنا حتى هذيك حتى مع الإله يكون نعمي ما ترين كتير هاي الإله بقول ليه هدي النعمة الإله هنا ترسان تعمى دمعة ما ترين كذا وحكون كذا مع النعمة بيجا كليه هذا كسر فين هذا متكليه جفت فريسين وأنا أقول ورده يعملوا ولا لا هذا نبيجا اسمعني والبس هيك أسعد من جهة هذا إلهي كاجات بدري بس هذا لكن محل غير نعمة سنة كشوفسو نعمة كستوعد وقاتم وإلهي وكسيه هنا واسط تولكم بطل الحمد لله أترى هذا الحمد لله كريم ما نروح وين عبادات كأسمين يسوي هنا أصلا يسوي شكو إلهي هنا أصلا يسوي واحد كستو عبادات أسمين يسوي هنا إلهي النعمة وكسيه شكري هان أقول تصل غيره نعمة مية يمت واحد لكوب كرمان لكن هنا مروا الوقت هذا ما رحت الحمد لله اللي دبت شوكت والوقت إلهي وسينا عافمات وصعدها واحد دريم كذا مركا أركته وفي الدلاء أركته وفي الولا مركا أركته وفي بدن مركا أركته بدأنيس مركا لا تسألون يومئذ عن النعيم ما لنت قيامه والذي ودين هي نعمة الله والذي ودين هي حال ذيك الربا نعمة الله هنا كشوف سبب ذيك الربا سورة القارعة سورة القارعة بإلهة أيضا وحكي هذا الإسلام الرباط صوص عضا بإيكا الإسلام الرباط سوحا كميدة القيامات مركا القيامات كعيسو اسبدل وين بعد عالم كلهم باسبدل كل عين اسبدل كاس دعاء روح ابن آدم كا وحا قبعة هي قلبي يسمتور يا رب مسكحتي سور ارتأي وحا نقرها سيدي قف عبسان وكانوا نقرها بيرو السعودة يبيرو السعودة ميخا بوري ووينات وقلت قلنا راسخة عروض ودقنا والدها سوحي نقرها سيدي ضرورتي أو كلام أما الصوف أو كلام نقرها أما الضروري هذا كلام نقرها maalintaas waa maalinta qof walba
wixii adduunyada uu ku soo samayn jiray miisaanka loo saarayo hadduu wax wanaagsan sameeyana haddii uu la kulmayo haddii wax uu sameeyana maalintaa uu la kulmayo suuraddu marka arrimaha noocaasay ka hadlaysaa oo fara badan bismi illaahi araxmaani araxiim alqaaricatu middii garaacaysay malqaaricatu midda garaacaysaa maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malqaaricatu midda garaacaysaa waxay tahay waa ismun min asmaa'i alqiyaama ism oo asmaada qiyaamaha ka mid ah weeye waxaa ka mid a xaaqa ka mid a gaashiya ka mid a mataqaan magacyo badan ay leedahay qiyaamaha ka mid a marka hadba waxaa lagu sheegayaa tilmaanta ay leedahay baa dadka loogu sheegaya hadba tilmaan ay leedahay tilmaanta marka qiyaamadu ay leedahay waxaa ka mid a alqaarica way garaacaysaa quluubta dadkay garaacaysaa maalintaas qalbiyaalku markay garaacmaan sawdkeeda ayaa lala wareeraya qiyaamadu markay dhacdo inkasta oo qof walbaba qiyaamadiisu ay dhacayso markuu dhinto haddana qiyaamo guud oo wakti guud oo ilaahay ugu talagalay baa jiro oo ummadda dhani ay maalintaas ku dhammaanayso allah subxaanahu wa tacaala maalintaas uu noo sheegay qaaricadu ay dhacdo in dadka dhani uu argaagaxayo ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض maalinta suurka la afuufo qiyaamada la afuufo waxaa argagaxaya samada iyo dhulka waxa ku jiro o dhan baa argagaxaya marka maalintaas argagaxa ku jiro baa nala xusiisanayaa marka ugu horeysa waxaa la yidhaha alqaaricatu midda wax garaacaysa maxay tahay mal qaaricatu waa la isweydiiyey maxay tahay nebiga haddana waxaa la yidhi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey mal qaaricatu midda garaacaysaa waxay tahay quluubta dadka midda garaacaysaa maxay tahay madaa u warhaya waxaa marka intaasoo goor loo soo celcelinaya waa tafkiiman lisha'niha xaalkeeda la weyneynaya arrinteedu arrin fudud inaysan ahayn ayaa lagu sheegahayaa inaysan arrintu fududayn marka maalinta qiyaame isbeddelka dhacayaa misle lagu sheegaya yowma maalin bay qaaricadu ahaanaysaa yakuunu nnaasu dadku uu ahaanayo kal faraashi baalaley oo kale almabhuufi ee la firdhiyey baalalayda waxaa la yidhaahdaa roobku markuu uu da-o ballanbaallida duulduusho oo nalalka iyo dabka ku dhacda taasaa la yidhaahdaa maalin dadku saa uu ahaanaya ayaa imaanaysaa baalalayda waad aragtay markii roobku da-o meesha iftiinkaa ku dhacaysaa dabkay ku dhacaysaa meel ay u socoto iyo meelay ka socoto iyo meelay joogto midna ma taqaano dadku saas u ahaanaya maalinta qiyaama abuurta markay ka soo baxaanna suurad kale waxay sheegaysaa kaannahum jaraadun muntashir ayax oo fidhaya aada moodaa abuurta dadku markii laga soo baxo oo xisaabta loogu yeero ruux gooni u leexan kara lama arko dadkii waxay soo yaacayaan sidii ayax oo kale u soo yaacayaan laakiin markan waa xaalad kale oo dadkii meel uu socdo iyo meel uu ka socdo midna uusan ogeyn oo sida balkaas ballanbaarista la yidhaahdo oo kale sidoodoo kale uu isaga daba wareegaya saas uu isaga daba wareegaya yowma maalin weeye yakuunu nnaasu dadku uu ahaanayo qiyaamadu waxay qaaricadu dhacaysaa yowma maalin yakuunu nnaasu dadku uu ahaanayo kal faraashi baalkaabiyana dad baa u yaqaan dad balanbaali bay u yaqaaniin waa xasharaadka yaryarka ah oo dabku iyo nalka iyo maaragtay kusoo duulduula oo meel ugu socdo iyo meel uu ka socdo midna aan aqoonin kaas weyn maalintaas dadku saas u ahaanaya wa takuunu ljibaalu buuruhuna waxay ahaanayaan maalintaas qiyaamo kalcihni suuf oo kale dad baa ku sheegay laakiin sida mufasiriintu badana u badaya waxaa weeye
dhogorta idaha oo la naqshadeeyey oo kale bay buuru u ahaanayaan almanfuushi ee la baahiyey dhogor idaad oo inta la sameeyey naqshada la geliyey bay buurihii ahaanayaan buuraha waa aragtay qaar waa guduudan yihiin qaar waa madow yihiin kuwa waa cad yihiin markii laysku burburiyo ma garata midabkooda waxaa ka soo baxaya dhogorta idaha oo la naqshadeeyey oo kale waxaan laga aqoona ka soo baxaya dhogor idaad oo la naqshadeeyo rinji loo yeelay bay buurihii u ahaanayaan وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب مرنا آيات كلا هذا كشيء وريه الأذكاء وجامد كاملة كجري والأذكاء والرواسخ لها سيد السحاب أو كلا نقولها ضرور أو كلا بورتي أنت بورتي ضرور أو كلا نقولها مركب ماشي سبحان كذا مقولها ماشي بورتي ما لا يعقل كأهين أي بورتي ومرنا أي سوف أو كلا نقولها marna dhogor idaad oo kale oo la naqshadeeyo kale ay noqonayso marna daruur oo kale ay noqonayso waa hawlka iyo